السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دواد برنامج كيني حسوس قرد اختر إدين قرطو إدين ديارسو دكتور باق بوبال أي كسو ديارسو مقالة هرقيسا بيلي عيارتويها كوبدا عكتا مالندوتو كودنتي دالكا برازيلين توحو بحيانين كاس جوهرة دمدو سببتو وحويان wuxuu ka mid yahay ama waxa uu yahay isagu ninka ugu caansan ee ugu xariibsan ugu qawisana kubadda cagta marka la eego ciyaarteeda ninkaas taariikhdu galay sababtu waxa weeyaan waa ninka qura ama ciyaartooyaha qura ee karay inuu ku guuleysto koobka adduunka ee kubadda cagta 3 jeer oo isku xiga waana ninka qura ee karay inuu dhaliyo 1281 gool inuu dhaliyo isagoo garoonka taagan oo ciyaaraya Pelé Braziliyiintu aad bay u jecliyeen maalintuu dhintayna waxa loo sameeyay geeri qaran oo meel kasta adduunka lisaga imi si geerada looga qayb galo dadweynahana waxa loo furay chance inay macasalaameeyaan isagoo kaniisadda meedkiisa u yaalo oo dadku aad arkaysay ku faraawo dul dhigaayo oo ooyaya Braziliyiintu ninkaas aad iyo aad bay u jecliyeen Pelé marka noloshiisa dib loo eego waxa jira 3 shay oo saameyn weyn noloshiisa ku yeeshay oo sabab u ahaa inuu heerkaas uu gaadho haddii noqoto magaca ama lacagta ama guusha weyn noloshiisa inuu gaadho 13 ayaa laga baranayaa noloshiisa aan doonayo maanta inaan idin la wadaago 10 koobaad waxa weeyaan jacaylka waalidku wuxuu sameeyaa mucjisado jacaylka waalidku waxa weeyaan sababta guusha nolosha inaad gaadhid iyo hankaaga hadafkaaga inaad gaadhid Pelé barigu yaraa aabihii wuxuu ka shaqayn jiray wuxuu ahaa ciyaartooyo kubadda oo naadi buu ciyaari jiray taasba wahayd shaqadiisa asaasiga uu bariiska reerkiisa uga keeni jiray Pelé aabihii waxaa nin aad u adag wuxuu ku oran jiray markasta ninku inuu adkaado ninku inuu qawi noqdo raggu ma ooyaan raggu ma jilcaan waxaas inankiisa ku oran jiray Pelé maalintuu ahaa da'diisu 9 ilaa 10 jir wuxuu arkay markii ugu horeysay noloshiisa aabihii ooyaya buu arkay sababtuna waxay ahayd 1950kii mubaaradii finalka ama kubaddii finalka oo Brazil lagu ciyaarayo Brazil iyo Uruguay baa ciyaarayay Uruguay baa ka badisay Brazil oo koobkii adduunka qaadatay sababtaas inuu aabihii uu murugoodo uu ooyo Pelé oo yaro 9 jira ay aabihii wuxuu ku yiri aabo ha warwarin aabaha ooyin ha cadhoonin daraada ayaan ugu guuleysanayaa koobka adduunka daraada Brazil aniga koobka adduunka ku guuleysanaya waanad arkay wuxuu kulay Brazil markuu ka sheekeynay sheekada qolkaygan galay anigu aad u murugaysan oo cadhaysan inaan arko aabahay ooyaya aabahayga qawiga ah ee weligii aan ooyin ee ugu oran jiray raggu way adkaadaan inta muraayad hor istaagay ayaa waxaan idhi naftayda ayaan ku idhi maanta haddaan garoonka taagay anigu aan ciyaarayo Brazil lagama badin lahayn haddaba marumaysanaysaan 8 sanadood ka bacdi Pelé wuxuu ku ciyaarayay dalka Sweden buu ku ciyaarayay waxaana ku guuleysteen isagoo da'diisu ay tahay 17 jir ay Brazil ku guuleysatay koobkii cagta ee adduunka taas waxay 1958kii Pelé markuu ka sheekeynayay sheekadaas wuxuu yiraahdaa hadalka iga soo baxay wuxuu ahaa hibad ilaahay uu siiyay ma garanay sababtan hadalka aabahay ugu iri ama ballantaan u qaaday laakiin ballantaydii waan ka soo baxay Pelé isagoo 10 jir ayuu bilaabay inuu kubadda ku ciyaaro xaafadaha kubaddu ku ciyaari jiray waxay sharabaad uu dhar uu ku guray ayuu kubad ka sameeyay ku ciyaari jiray maalin maalmo isagoo ciyaaraya nin baara dadka xarfaanta ah ayaa wuxuu arkay isagoo ciyaaraya markaas wuxuu yiri inaan kan yar taariikhda kubadda cagta ayuu galaya inanka yar buu soo kaxeeyay wuxuu ku daray naadiga Santos ee bariga ku yaalay dalka Brazil 1955kii markaas hadhowtana 1958kiiba waa ku guuleystay magacii koobkii helay 2 gool ayuu ku dhaliyay fariiqii ama kooxdii uu la ciyaarayay markaasuu ku guuleystay koobkii adduunka Pelé 3 jeer ayuu ku guuleystay koobkii adduunka
taas waxay ahayd 1958 isagoo 17 jira iyo 1962 iyo 1970 isagoo 30 jira saddexdaa jeerna aabihii garoonkuu taagana inankiisuu daawanaya isagoo kubadda ciyaaraya uu faraxsanaa jacaylka waalidku mucjisaduu sameeyaa ballantiisuu ka soo baxay biile ballantaa uu ka soo baxayay uu daraaddeeda u shaqaynay u dadaalayayna waxay ahayd inuu aabihii ka farxiyo ixtiraamka waalidka ee kalgacalka waalidka loo hayo inaad waalidkaaga aad ka dambaysid oo hadalkiisa aad maqashid oo aad ka shaqaysid farxaddiisa iyo raaligelintiisa waxaweyaan sababta koobaad ee loo gaadhayo guusha nolosha ee hadafkaaga iyo hankaagana nolosha inaad gaadhaysid casharka labaad ee laga baranayo nolosha biile ee idinkana noloshiina aan filayo in wax ka bedelayo waxa weeyaan magaciisa runta biile wuxuu ahaa ee aabihii u bixi markuu dhashay wuxuu ahaa Edison Arantes do Nascimento magac adag weeyaan markuu iskuulka ku jiray caruurtu magaciisa may kari jirin uu ku adkaa maalin maalmaha ka midka ayaa lagu yiri magaca qor nin ciyaartooy ah oo aad u jeclaa biile bargu yaraa waxa la oran jiray ninka Digama Biile markaas lagu yiri qor ama higaadi magaciisa markaasuu higaadin kari waaye markaasay caruurtii ku qosleen markaasaa dhootan waxay noqotay sabab in caruurtu markasta ku caayaan oo ay u bixiyeen magaca biile waxay ku caayi jireen magacii uu higaadin kari waaye ama uu qori kari waaye markaasuu magaca aad u necbaa bargu yaraa sabab bay noqotay maalin maalmaha ka mid ah in yaroo ku idhi biile oo ku qoslay intuu qabtay buu dilay markaasaa iskuulka 2 cisho laga eriyay magaca markuu ka sheekaynay noloshiisa wuxuu aad baan u necbaa cuqdadna man ka qabay laakiin muu garanin biile bargu yaraa magaciisa hadaa la eega macnaha magaca biile afka Irishka waxa weeyaan kubadda cagta luqadda qowmiyadda hiibiyiintana waxa weeyaan mucjisadda biile wuxuu ku leeyahay markan weynaadii magacayga waan jeclaaday sababtu waxa weeyaan waa nimcad Ilaahay uu siiyay magacaygu waa magac kooban oo yar oo qurux badan oo fudud oo la xafidi karo oo maskaxda ku dhagaaya waanan ku caan baxay magacaas laakiin magacaygu hadduu ahaan lahaa Edison Arantes do Nascimento yaa qaybi kari lahaa ma xasuusan lahaa ayuu idhi biile haddaba waxaa xasuusataan mar kasta subxaanahu wa tacaala wuxuu idhi wacasa an takrahuu shay-an wahuwa khayrun lakum sadaqa allahu alcadiim waxyaaba nolosha aad necab tahay oo aanad doonayn laga yaabo in khayr badan iyo wanaag badan uu ku jiro waxyaaba nolosha laguu diido aad ku guulaysan weydid laga yaabo inaa xumaan badan lagaa hayay waxyaaba aad jeclaydeed u oroday aad u shaqaysay aad niyadda ku haysad weyday hamooda inay shar tahay laga yaabo inay ka dambayso farxad iyo guul badan magacyadaad caruurtaada u bixinaysidna mar kasta ka fiirso magac kasta bini'aadam kasta qayb buu ka yahay noloshiisa oo saameynna nolosha bini'aadamka u ku yeesha casharka saddexaad ee aan ka baranayno nolosha biile waxa weeyaan 1940 ayuu dhashay biiley xaafad aad u faqiira dalka Brazil imanka laakiin xaafadaas markuu caan noqday waxa loo bixiyay xaafadu ku dhashay xaafadii biile wuxuu ku leeyahay laydhka xaafada degana waxay soo gashay ama la soo geliyay laydhka 2 cisho ka hor intaanan dhalan markaasuu aabahay ii bixiyay Edison ugu magac daray ninkii laydhka sameeyay Thomas Edison wuxuu ku leeyahay anigoo 7 jir ayaa faqri daraaddeed iyo duruuf daraaddeed ban baxay oo dadkan kabaha u masaxi jiray baalash laban ahaa san lacag ururiyo laakiin mushkilad bay haysatay mushkiladaas waxay ahayd dadka xaafadda ku nool oo dhan kaba ma haystaan faqri daraaddeed oo bilaa kabay ku socdaan nin qurun baa lahaa kaba gashan jiray marka customerka qura aan lahayn kaba u masaxi jiray ninkaasuu ahaa taas bay ku kooliftay inuu lugayo xaafado fog inuu tago soo dadka kaba ugu masaxo wuxuu hor fadhiisan jiray naadigu aabihi kubadda uu ka ciyaari jiray markaasaa dadka naadiga soo galay kubadda ku ciyaaraya ama kubadda daawanaya taageeraya ama dadka ciyaartooyaha ee kubadda ciyaaraya ayuu isugu jiro kaba u masaxi jiray marka biile noloshiisa wuxuu ka bilaabay kaabashle ilaa intuu noqday ninka ugu caansan taariikhda kubadda cagta ilaa intuu noqdayna wasiirka ciyaarta ee dalka Brazil ee uu noqday heer in loo bixiyo jawharadda madow uu noqdo ninka ugu qiimaha badan taariikhda dalka Brazil waxaad xasuusataa mar kasta si kasta duruuftaadu adag tahay haysdhiibin si kasta haddii caqabaduhu iyo cadowgu kugu badan yahay haysdhiibin waxaad xasuusataa mar kasta inaad adkaatid oo aad duruuftan aad ka bixi kartid haddaad ilaahay talada u dhiibatid oo aad shaqaysid oo aad dadaashid inaad hadafkaaga gaadhaysid maalin ka mida maalmaha nolosha taas waxa weeyaan 3 cashar oo aan ka baranayno nolosha
ciyaartooyaha Biile aniguna runta markaan noloshiisa baaran dib u baaran akhriyay waxaan saddexdaa shay saameyn bay nolosheeda ku yeesheen markasta waan xasuustaa waxaan rajaynayaa idinku inay ka faa'iidaan oo ay saameyn noloshiina ku yeelato waa mahadsantiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh